Saaxiibada qiimiga badan waa mar kale IM 252. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dib u kulanno muddo toddobaadyo kadib oo aan kala maqnayn. Eeba ayaa ku mahadsan runtii. Sababta aan idinkaga maqnaana sida aad istoriga kusoo aragteenba waxay ahayd in aan howl ka waday istuudiyaha afraad ee uu IM 252 yeesho. Ma ahan istuudiyaha afraad ee la tiriyo, laakiin istuudiyaashii IM 252 uu soo yeeshay midkiisii afraad. Runtii fikradda istuudiyahan waxay ku timid sabab laga yaabo in qaybna aad ka ogeydeen, qaybna aan haddeer idin sheegi doono. Sababtu waxay ahayd tayada muuqaaladii aan dhawaanahan soo duubayo aad u yaraa, sababtoo ah dhanka muuqaalka iyo dhanka maqalkaba istuudiyaha uma diyaarsanayn in uu wax tayo leh soo saaro. Sidaa darteed waxaan ku qasbanaa in aan anigoo ka fikiraya inaan casharada idinka baajinin ama muuqaaladeeda aysan baaqanin yaan muuqaalo soo samayn jiray, laakiin runtii kuma raaxaysan jirin maadaama istuudiyaha uu qabyo ahaa ama uusan wax badanba u diyaarsanayn inuu wax tayo leh soo saaro. Arrinta kale muhiimkana waxay ahayd sidaad ogeydeen istuudiyo ayaan hore u lahayn. Istuudiyahaas waqti iyo qarash badan ayaa naga galay iyo dadaal badan, laakiin ugu dambeyntii nasiib darro waan weynay. Marka si aysan u dhicin in qarash ama dadaal istuudiyo aan gelino oo haddana aan weyno, waxaan ku talagelayay in walxaha istuudiyaha aan ka sameynayo uu noqdo wax la qaadi karo ama portable ah. Waxyaabaha hadda istuudiyaha aan ku sameeyey oo idil intooda badan waa wax la qaadi karo, oo haddii ay noqoto in istuudiyo kale loo guuro ama meel kale la tago noqon doonto wax aanan meesha looga tegin oo mar walba nala socda oo dib u isticmaali doono insha Allah. Arrinta kalena waxay tahay halkan kuma eka istuudiyahan qalabeyntiisa iyo dayactirkiisa iyo qurxintiisaba halkan kuma eka, oo fikradda aan ku sameeyey waxay ahayd inaan hal mar wada dhammaystirin oo aan qayb qayb u sameeyo, u qurxiyo, u wanaajiyo, u hormariyo. Sidaad u jeedo tusaale ahaan calaamadda ama astaanta IM 252 hadda waxay ka samaysan tahay guduud iyo madow. Sidaad u jeedo kale istuudiyaha idilna waxa uu ka samaysan yahay guduud iyo madow oo ah labada rinji ama labada midab ee aan aadka u xiiseeyo, gaarna u ah IM 252. Laakiin halkan tusaale ahaan calaamadda ama astaanta IM 252 waa madow iyo guduud, laakiin haddana waxaa background u ah ama ka dambeeya midab kale madow ah, taasoo keeni karta ma ahan wax saxan, laakiin waxyaabaha aan isbeddelka ku samayn doono ayay ka mid tahay. Kaliya waxaan rabay inaan kuu sheego istuudiyaha isbeddelkiisa qayb qayb ayaan ka dhigi doonaa inta aan hal mar waqti dheer gelin lahayn oo dadaal badan aan gelin lahayn. Mar walbo oo istuudiyaha aan sii adeegsanaynana, mar walbo oo aan isbeddel iyo horumar badan ku sameyno insha Allah. Haddii la fiiriyana xagga qalabka tusaale ahaan istuudiyaha IM 252 runtii qalabkiisu ma dhammaystirna oo qalabyo badan oo muhiim ayaa ka maqnaa. Ilaa mahadiis qalabkaas qayb ka mida oo muhiim ah haddeer waan helay, qaybta kalena iyadana waxaan rajeynayaa inaan mar dhow heli doono insha Allah. Ugu dambeyntiina aad baan ugu faraxsanaa inaan mar kale idinla kulmo. Waxaan rajeynayaa in muuqaalka xiga uu noqon doono mid tayo ahaan dhag ah, aan wax badan ka heli doontaan xog ahaan iyo aqoon ahaanba insha Allah. Waxaan idin rajeynayaa guul iyo farxad sida caadiga ahaaba. Guuleysta kuna soo dhawaada istuudiyaha afraad ee IM 252.